dambeeyay magaalada Saxaanood ciidamo aad u tiro badan oo dhawaan soo tababartay ama tababarka u soo dhamaaday ayaa waxa ay soo gaareen magaalada Saxaanood ee jid hore ee dagaalka iyagoo doonayo in halkaasi weerar ay ku qaadaan ciidamada ku sugan Gooja Cadde waxa laga soo sheegayaa godka madow ee naarta in mataqaanay dad badan oo waliba ciidamada Somaliland inay ku waasheen kadib markii ay adkeysan waayeen xabadda iyo waliba daryeelka madaafiicda halkaasi ka dhacayo isla markaana laga soo sheegayo in halkaasi ka jirto xaalad bini'aadanimada ugu xumeed dad aad u tiro badan oo aan sheegi doono tiradooda ayaa halkan ku bidaamin doona oo ku waashay dagaalkaasi sidoo kale Gooja Cadde laftiisa waxa ka socda in askarti ku sugneed beel u kala baxeen iyagoo oo askari ka tirsan ciidamada SNM-ta maanta ama saacada hadda dhawaan lagu diray gudaha Gooja Cadde iyadoo waliba qabiilka ay ka soo horjeedeen u kala safan yihiin Somaliland ayaa waxa ka taagan xaalad aad u adag oo siyaasadeed taasi oo ah in xisbiyada mucaaradka ay diidayeen inay dhahaan Soomaaliya way isku dhiibina hadii Muuse mar kale uu ku soo noqdo cod sir ah oo laga duubay ninka la yiraahdo Cabdiraxmaan Cirro ayaa arintaas ku bidaamin doono oo ka hadli doono anagu dul istaagi doono insha Allah isla codkaasi sidoo kale barnaamijkan waxa qayb ka noqon doona Xasan Sheekh Maxamuud ayaa waxa uu bilaabay wajiga saddexaad ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya ay kaga saareen ururka shabaab goobaha ay kaga sugayeen dalka Soomaaliya iyadoo dhawaan la filayo in wajiga saddexaad si toos ah u bilowdo haddana la geeyay ciidamada ka yimaada dalka Eritrea qayb ka mid ah gobolada dalka kuwaasi oo ay ka howlgali doonaan barnaamijkan waxa la falanqeyn doona saaxiibkay Gooni oo arrimahan si weyn u la socday Gooni soo dhawow maxaa ka socda Gooja Cadde عكاشو Gooja Cadde waxa ka socdo dagaal u dhaxeeyo ciidamada Somaliland waxaana halkaasi lagu dilay maanta askari ka tirsan ciidamada Somaliland kadib markii isqabqabsi fara badan oo dhanka beelaha uu ku saameeyay kadib markii la sheegay inuu gobolka Togdheer dagaal ka socdo uu saameeyay ciidamada ku sugan Gooja Cadde marka ninkan waxa lagu magacaabaa Togdheer waxa qabaayil isku haysta sida warka nagu soo gaaray marka ninkan waxa lagu magacaabaa Cabdullaahi Cabdi Saciid wuxuu ka soo jeedaa beesha Habar Yoonis gaar ahaan beesha Cabdi Xirsi waxaana dilkiisa geystay nin ka soo jeedo dhinaca Ciise Muuse dilkan ayaa la xiriiro dagaal ka socdo deegaanka Ali Shahiid ee gobolka Togdheer sida wararka ay nagu soo gaarayaan marka aana qabiil ay u egtaa arintani waxa la isku haystaan waa arintaasi marka hadii mar ciidamadu ayagoo isku qabiil ah meesha ay ku sugan yihiin haddana laf u kala saftaan waa dhibaato aad u weyn ayadoo arin kalena Gooja Cadde ka jirtay haddana tan ugu sii darsantay xaalad nololeed oo aad u halis badan ay ka jirto Gooja Cadde ciidamada Somaliland xabad isku bilaabaan waxay noqon doontaa halis ay dhankooda soo wajahdo dagaalkeena oo misaas ay saameyntiisa ku dhamaan doona sidaan ila taa Cukasho waxaad inoo raacaysaa qaybta ku saabsan in askar badan oo ku sugan Gooja Cadde inay ku waasheen kadib markii ay madfaca iyo dhufayska farada badan ay ku jiraan ay adkeysan waayeen waxa la sheegayaa in ciidamo aad u fara badan oo ka soo jeedo waxa la yiraahdaa Somaliland inay ku waasheen halkaasi bil iyo bar gudaheed ayaa waxa laga saaray 58 askari oo ciidamada Somaliland ah mar walba 5 mar 10 mar 8 mar 6 intaas waxa leeyahay way waasheen dharkii tuureen marka dadku waxay isku dhaxwadaan in laba arin in dadkan cabsi darteed uga baxeen oo iswaaleen inay soo jeeditaanka faraha badan iyo dagaalka nin dhufays ku jiro hurdo ma arka waqti teeda kale daraagiska wax loo yaqaan haween iyo maalin daraagis isticmaalayaan soo jeedkuna waa badan yahay marka waxa laga yaabaa labada arrin been isugu darsantay oo mid waa mid koobaad in maxay qofkan dhafarkii iyo soo jeedkii faraha badnaa waa loo keeni kartaa iyo cabsida iyo dagaalka madaafiicda meesha ka jiro mid labaadna inuu arintan halis ay ku noqoto cabsi uu dareemay isla markaana uu rabo inuu ka baxo dagaalka si kale uga bixi karin aysan jirin oo markaas sheegtay inuu waalan yahay ama macnaha laga dareemo dharka oo tuurto qoriga tuuro waxa marka waxa la yiraahdo qofka wax lagu mahaleyn karo dadka la joogo oo dilaya saas ayaa looga saaraya marka Hargeysa la geenayo meel xarumo dhaqan cilna ama xarumo waxa la geenayaa dadka waalida marka intaas ayaa soo korortay 58 qofoodna waa muddo bil iyo bar gudahooda ayay ku waasheen xaalad marka halis ay ka jirto Gooja Cadde haddana birti ayay saareen oo ayaga ayaa hadda dagaal isku hayo oo is dhameynaya marka waxa dhig karaa dagaalna wuxuu ka jiraa meesha lagu magacaabo Dhamasaar oo hadda aad ciidamada SSC ugu gurmayaan kuwa Somaliland ay ku sugan yihiin haddana xabad inay bilaabato waqti kasta la filan karo maadaama labada ciidan ay soo fadhiyaan waxaan is helay laba ciidan oo sahan ah oo halkaas difaac ka kala galay laakiin xabadu weli ma bilaaban laakiin waxa la leeyahay mar walba ay xabad bilaaban kartaa
aada u weyn waad mahadsan tahay saaxiib gooni haddii aan sii wadno ciidamo aada u tiro badan oo kasoo jeeday s c dhawaana loo soo xiray tababar ayaa waxa ay kusoo qulqulayaan magaalada laascaanood kuwaasi oo doonayo inay qeyb ka noqdaan halganka halkaasi ka socdo haddaba barnaamijkan markale waxaa dib u noqon doonaa saaxiibkay gooni horta ciidamadan waa ciidamo aada u fara badan waxaana lagu soo tababaray meesha lagu magacaabo widwid halkaasoo tababar ugu socday muddooyinka lasoo dhaafay marka tababarka dhamaysteen waxay sheegeen inay s c u gurmo doonaan gaar ahaan magaalada laascaanood ay ka dagaalgeli doonaan ayadoo halkaasi ay kusoo dhaweeyeen garaadada iyo saraakiisha ciidamada halkaasna xaflad heer sara loogu sameeyey islamarkaana sawirada qaarkood ama muuqaalada ay arki doonaan dadka shacabka ayadoo markaasi dadkaas lasoo bandhigayo marka waxaa laleeyahay ciidamo aada u fara badan ayay ahaayeen waxayna rabaan inay ka barbar dagaalamaan ciidamada maxaa la yihahdaa s c ee ku sugan kuwo kaloo fara badan oo soo socdaan kuwo kaloo isdhiibay oo shalay waxaa jiro ayagana dhanka ay puntland isku dhiibay oo ka goostay ciidamadan maxaa la yihahdaa somaliland marka waxaa umalaysaa muuse biixi cabdi dagaalo fara badan barnaamijyo fara badan inuu wajahayo gobolka owdal gobolka sanaag maxaa la yihahdaa hadda gobolka sool oo xaaladdu ka socoto meelo fara badan jahooyin fara badan waxaa kusoo furmay muuse biixi cabdi qaab u maareeyana ma yaqaano oo waa nin dagaal ooga ah marka dagaal ayuu 4 saac usoo taagan yahay haddana wuxuu ku jiraa go-doon siyaasadeed mucaaradka ay dhinacay kaga dhagan yihiin waxaa umalaysaa marka in muuse isku dhammaad oo maraya xaaladiisa waqtiga oo ka bixi lahaana dhammaan maxaa la yihahdaa siyaasadda ayaa la marayaa ninkii la cakaasho gudaha dalka Soomaaliya waxaa ka soconaya diyaar garow kaasi oo la doonayo in wajiga saddexaad ee la dagaalanka ururka al-shabaab in laga bilaabo magaalada Muqdisho madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo sheegay in qodobada horyaala ay kamid ahay la dagaalanka al-shabaab iyo musuqmaasuqa ay waxa uu hadda u bilaabay inuu ciidamada uu ku dadgureeyo goobaha kala duwan ee furmaha dagaalka kuwaasi oo doonayo in markale ku wajaho ururka al-shabaab xasan sheekh maxamuud wuxuu soo bandhigay ciidamada ugu tiro badnaa kuwaasoo laga keenay elitaria darees cusub iyo hub cusub iyo qoryo isaanid military oo cusub ayaa loo soo bandhigay shalay waana lagu wareejiyey marka qayb ka mid a waxaa loo bixiyay gantaal ciidamadaasi waxaana loo daabulay aaga hore ee dagaalka dhankaasoo dagaal uu ka socdo meesha lagu magacaabo budbud iyo deegaanada galguduud ayaa ciidamada la geeyey maantana qayb kale kusii wajahan ayagoo markaasi sheegay waxaa la arkaya askari Soomaali ah oo niman amisom xerada General Gordon ku dhex sugan isla markaana shafka intuu ka dharbaaxay ninka askariga ah Ugandeska ku yiri halkan Uganda ka imaaday halkan adiga ma leeyahay waqtiga abixileed ayaa la joogaa marka waxaa umalaysaa in hadda shacabka Soomaaliyeed iyo ciidamadu isku tashteen shabaabkana la xoreyn rabo meelo fara badan laga xoreyn rabo ayadoo ciidamada dawladdu ay markaasi guul ay ka gaari doonaan marka wajiga labaad waxaa lala sugay waxaa leeyahay nimankan dagaalka ee lagula jiro in ciidamadan maxaa la yiraahdaa elitaria hubeey ay ahayd maadaama ay ku xareysnaayeen xerada haddana hubkooda lagu wareejiyay maanta ishalana way dhaqaaqeen waxayna ku biiri doonaan jiida hore dagaalka dhanka Muqdisho hadda aan u soo wareegno waxaa jiray qarax lala eegtay xalay ciidamada maxaa la yiraahdaa police military oo mar dhow lagu wareejiyay amniga Muqdisho waxaana halkaasi qarax miin oo ku haleelay deegaanka Kaxda markaasi gaarigii qarax qabsaday 4 qof oo askarta ka mid ah ayaa ku dhimatay 4 kale oo ku dhaawacantay gaarigaas oo markii dambe ciidamada dawladda halkaas ay ka soo jiideen waa markii ugu horeeyay oo ciidamada police military qarax ay la beegtaan shabaabka maadaama marar fara badan ay ka feejignaayeen shalayna waxaa la qabtay nin oo bamba ku tuuray ciidanka isla markaana ciidamada intay bursadeen ay ka soo qabteen haanta dheer ee degmada Daynile kadibna lagu sii raayay dadka la shaqeynayay asagoo 2 gabar ku soo bandhigay isla degmada Daynile isla markaana loo qaaday dhanka ay xarunta CID oo dambe baaris lagu hayo ninka la raaco kaasho aad ugu wanaagsan tahay daawadayaal barnaamijka uu nagu yar dheeraaday waxa barnaamijkeenan kale aan ku eegi doonaa oo dhawaan isna mataqaanaa hawada soo gali doono Cabdiraxmaan Cirro iyo codka sirta ah ee laga duubay ee ku saabsan Muuse Biixi Cabdi iyo waliba wiilkii aabihii hawaaray oo sheegay inuu SSC u soo goosan doono iyo waliba xaaladda Mahad Cambaashe oo la sheegayo in hadda uu ku xiran yahay Samakaab isla markaana xaalad halis ah ay soo wajahday muqaal shargare asxaabteena la wadaag